faahfaahin dheeraad ah ka soo baxayo rag lagu dilay deegaanka Gololey oo ka tirsan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Raggan ayaa la tilmaamay in laga kaxaystay deegaankaasi Gololey maalintii shalay ugu dambeyn maanta meedkooda la soo dhigay goob ku dhow tuulada. waxaana la tilmaamay in raggan la dilay 7 kamid ay ahaayeen kuwa ka shaqeynayay xarun caafimaad. mid kamid dadka deegaanka ayaa qayb ka ah dadka la dilay. 8 ruux ayay gaaraysaa tirada. nabadoon kamid ah nabadoonnada ku dhaqan degmada Balcad oo lagu magacaabo nabadoon Maxamed Cali Madoobe oo la hadlay warqabadka idaacadda Kulmiye ayaa ka hadlay arrinkaasi. waxaana uu sheegay in raggan dilkooda ay ka dambeeyeen rag ku libisan dareeska ciidamada dawladda kuna sheegay inay ka tirsan yihiin ciidamada dawladda. nin oo jaamiciin ah oo u shaqeyso maxaa la yiraahdaa MCH-ka tuulada Gololey oo Samsung Foundation ayaa shalay wax u yimid manaqadada afduuban oo yimideen. dadka afduuban adiga tuutooy ku libisnaayeen sida dadka goobjooga ay sheegeen. anaga Balcad calaamada qarankana way iska qariyeen. calaamada qarankana calaamada ku soo duubteen. marka indhaha way soo tuutii qarankana calankii oo qaranka oo meesha dhinaca ugu yaalay garabkooda calaamado. marka sida dad xogogaal ay noo sheegeen meesha ku taalo oo la yiraahdo 7 ay marka ay taaliiri Balcad ka shaqa tageen ilma la laaynayo tuulada lagu laaynayo. waa dad Balcad ka shaqa tagay oo dad oo jaamiciin ah oo ciyaal yar oo jaamiciin ah oo ka shaqeeya MCH-ka Samsung Foundation oo dhaqaatiir ah. hal ayaa kamid hal guriga laga soo watay 7 shaqaale ah shaqaalaha Samsung Foundation. MCH-ka guriga laga keenay deegayo jura shaqada MCH-ka ku jira oo fuqaahna u joogaan ayaa la keenay. waxa ku baxay shalay odayaalka nabadoonnada ku baxeen. odayaalkii nabadoonnada meel loo qaaday meel kale waa kala garan waayeen. annaga dhan juudiyan sameynay telefoonaan dirnay telefoonadii aan dirnay jawhar aan wacnay gobolka Shabeellaha Dhexe laga xukumay Balcad soo gaareen. dadkaasi ma yiraahdeen oo xaqiiqa ah inay dileen dadka 7 joogo 7 ciidamada dawladda waxay yiraahdeen gabdhaha jooga meesha waxay yiraahdeen calanka qaranka ay meesha ku xirteen meesha la sheegay meesha lagu diray. dhinaca kale afayeenka Hirshabeelle Daawud Xaaji Ciro oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dhacdadan si aadan uga xun yihiin maamulka Hirshabeelle eena wax kama jiraan ay tahay eedeyntan ay nabadoonnada qaar ay ku eedeynayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay dileen dhalinyaradan. waxaana uu sheegay in ay ka dambeeyeen dilkan dagaalamayaasha al-shabaab. waxaan leeyahay in Allah wa inna ilayhi raaji'uun. Allah u naxariisto. Gololey runtii waxa ka dhacay waxa weeye dilwadareed runtii xasuuq ah oo runtii ay geysteen kooxaha nabadiidka ah ee al-shabaab. shalay galkii dambe ayaa waxay afduubteen dad dhalinyaro ah oo 8 kamid ah dhaqaatiir ay ahaayeen iyo mid kale oo darawalkoodii ahaa. xalay ay haysteen oo maanta dhan ay haysteen. galabtana xilli dambe ayaa waxa iyagoo dadkii ay xasuuqeen ayaa waxa ay soo dhigeen meel u dhow deegaanka ee shalay ka afduubteen. waxaas waa been sababtoo ah ciidan dawlad Soomaaliyeed u shaqeeya ma sameeyaan afduub oo dad shacab ah oo dhaqaatiir ah oo dadka iyo deegaanka u shaqeeya ma afduubtaan. waa jiri karaa niman odayaal ah oo shabaabka u shaqeeya in shabaabka qaarkood ay u soo sheegeen in ciidamada dawladda lagu wareejiyo kiiska noocan oo kala ah waa jiri kartaa. laakiin waxaan qaraynaa waxa falkaas sameeyay inay yihiin ciidamadii shabaabka ahaa. meeshan waxaa tagay hadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 20aad ayaa tagay ciidan booliis ugu Shabeelle ah. xaaladda mataqaanaa meedkii degmada Balcad loo gudbiyay si ida loo sii gudbinaya. laakiin falka dhacay waxa geystay al-shabaab ee dadka afduubtay kadibna la laayay. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar.